حدك عطانكي لحظك عبرتي عزقي حرية دي لحنكي كوعن بحو والله بالله مرباض عرهو ربي سوعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا عليه بلوغي حدك عطانكي لحظك عبرتي عزقي حرية دي لحنكي كوعن بحو والله بالله مرباض عرهو ربي سوعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا وعزقاقي مكان سوعيلي عكوي بفريد وكوضع عقار نقم عولاد لقى فيوبان إن شاء الله مرباض عرهو ربي سوعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا وعزقاقي مكان سوعيلي عكوي بفريد وكوضع عقار نقم عولاد لقى فيوبان إن شاء الله مرباض عرهو ربي سوعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا وعشاء إيماني عليو عالمكو إدل عليو مقاعي زيني عليو عدكاقو شقيني عليو عردان دهبك عليو شدالك عميران عليو عيرين لصوبحي عليو والعيرك قبسني عليو وعشاء إيماني عليو عالمكو إدل عليو مقاعي زيني عليو عدكاقو شقيني عليو شرف وين أي تهاي إن أنا عاو هالكان يسوقني مانو حمد الله دبديس إلى هبا ما هذا هو إسكاله ميدا لبنا مرت ولا لا وقت جودو سهوري عاو هالكان إن يسوقني مانو هذه هذا نوقف فرح سنة هاي دمانتين برنامج كان عاو يسوقني ميت وهدف كيسوية هاي
iska warqabka koowaad ee magaalada dadka wada degan iyo midda labaad oo ah inaan isbeddelkii Soomaaliya maanta ka dhacay inaan taageerada nooga aadan haddaan nahay magaalada Youtubori waxgaradkeeda aqoon-yahanadeeda odayaasheeda hooyooyinkeeda gabdhaheena dhammaanteen annagoo qalbi furan leenahay waxaan Soomaaliya u rajaynaynaa horumar nabad iyo baraaro inuu Ilaahay maaragtay wadankeena ka yeelo hadafka xalfaddu waxa weeye soo dhaweynta madaxweynaheena cusub Professor Xasan Sheekh Maxamuud inaan kaalinta uga aadan inaan ka muujino haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed halkan ku nool sida walaalkeen Maxamed Diini oo u sheegay caawa munaasabadan waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta isbeddelka cusub Soomaaliya ka dhacay Soomaaliya oo yeelatay nidaam cusub baarlamaan cusub Soomaaliya oo ka baxday nidaamkii ku meel gaarka ahay Soomaaliya oo yeelatay madaxweyne cusub Soomaaliya oo yeelatay gudoomiye baarlamaan cusub xildhibaano cusub marka caawa sharaf weyn noo tahay haddaan nahay Soomaalida degan magaalada Youtubori agaarkeeda in caawa saan kale loo soo buuxsamo waxayna tusaysaa midnimada Soomaalida caawa waa tilmaan muujinayso sida kaliya oo Soomaaliya iskugu duuban tahay marka kaliya ma ahan munaasabad saan oo kale la sameeyo waxa ka horeysay ciidooyin kooda July waxyaabo badan magaalada laga sameeyay muddooyinkaas ugu dambeeyay 5 sano ugu dambeysay waxa dhacaysay in hal goob kaliya la iskugu imaanay marka caawa ayadiyo si ziyaaday waaye Soomaaliya oo dhan ay u dhibastireen tahay caawa inay halkan soo wada fadhiistaan guul weyn noo tahay barnaamijka waa laga sii dambeyn doonaa dad badan aqoon-yahano culamaa u diin odayaal dhaqameed dadka dhaqanka Soomaaliya yaqaano aqoon-yahan kulli iyo hooyooyin ay ka dambeyn doono kaliya aniga waxaan u soo istaagay ma ahan inaan ama cilmi badan ama si kale walaalaheen qabanqaabadaas kula jirnay ayaa ii doorteen inaan aniga magacooda ku hadlo marka Cabdullaahi soo dhawaaw wuxuuna nooga warrami doonaa taariikhdii waa nooc qof noocay ah madaxweynaheena bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku faraxsanahay caawa inaan nasiib u helay inaan ka sheekeeyo taariikhda madaxweynaha cusub Professor Xasan Sheekh Maxamuud sida TV-ga ama meediyaha uu badanaa dadka Soomaalida u sheegay waxa laga yaabaa in badan inay og tahay hase ahaatee maadaama uu yahay nin ku cusub siyaasadda Soomaalida markuu uu ku soo baxay tartankii madaxweynenimada waxaa dhici karta dad badan oo Soomaali inay isweydiiyeen Xasan Sheekh Maxamuud ninkani waa nin noocma ma aragtay dad badan inay isweydiiyeen weli ay dad badan oo Soomaali aqoon buuxda aysan u lahayn run ahaantii waxaan ku faraxsanahay inaan aad u aqaan Xasan Sheekh Maxamuud Professor Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku dhashay magaalada la yiraahdo Jalalaqsi ee ka tirsan gobolka Hiiraan wuxuu dhashay dabayaaqadii kontameeyadii waqti ay Soomaalida isku diyaarinaysay inay noqoto dawlad xur ah waxa la dhihi karaa wuxuu ku soo barbaaray wax ku soo bartay wadan xur ah iyo wadan uu ka jirto dawladnimo ay ka jirto Xasan Sheekh Maxamuud fasalka koobaad ilaa fasalka afraad wuxuu wax ka dhigtay magaalada Jalalaqsi uu ku dhashay markuu dugsiga dhexe iyo dugsigiisa sare ee farsamada gacanta uu ka soo baxay wuxuu ku dhigtay magaalada Muqdisho ayuu ku dhigtay 1978 wuxuu nasiib u helay inuu ka mid noqdo ardaydii jaamacadda ummadda ay qaadatay gaar ahaan kuliyadda loo yaqaano kuliyadda farsamada ama polytechnica loo yaqaano ilaa 1978 ilaa 1981 jaamacaddaas ayuu dhiga jiray wuxuu ka qalin jibiyay 1981 uu ka qalin jibiyay Xasan Sheekh Maxamuud waxaan aqaanaa aqoontiisa ilaa maalintii uu dhiganayay dugsiga hoose ilaa dugsiga sare wuxuu ahaa nin tacliinta aad ugu wanaagsan fasalada dugsiga farsamada Scola Industriale waqtiyadaas uu dhigi jiray marka la galayo oo sideedaadka laga baxo oo iskuulaadka dugsiga sare farsamada ama dugsiga beeraha la raadsanayo waxa raadsan jiray kaliya dadka galaaska ugu dhibco badan marka taas waxay ku tusinaysaa sideedaadkiisii markuu ka baxayay iskoolkii Xamar Scola Bintuno ka baxay inuu buundo fiican ka watay taasaana u suurtagelisay inuu Scola Industriale galo halkaasna uu dugsigiisa sare ku dhameysto jaamacadda markuu ka qalin jibiyay 1981
sidoo kale wuxuu ahaa dadka waxbarashada ugu fiican jaamacadda kooxdiisii ugu fiican nasiib wuxuu u helay inuu jaamacadda ku haro oo loo qaato inuu ka noqdo jaamacadda macallin inuu ka noqdo sideetameeyadii horaanteedii isagoo macallin ah oo ka shaqaynayo iskoolka kulliyadda farsamada ama polytechnica loo yaqaano wuxuu ahaa nin ganacsado ah oo shaqaysto oo ganacsi xalaal ah xamar gudaheeda ku haysta ayuu ahaa 1988 wuxuu jaanis u helay in uu helo waxbarasho tacliin sare inuu helo ay dowladda Soomaaliya siiso oo dalka India u aado halkaas wuxuu ku soo diyaariyay shahaadada master degree-ga loo yaqaano takhasus ayuu ku soo suubiyay waxay ku soo beegantay xilliga uu diyaar yahay inuu dalka u shaqeeyo dalka ku sugan xaalad burbura sagaashameeyadii markuu dalka ku soo noqday dawlad kama jirin markaa wuxuu ka howlgalay hay'adaha United Nationka ee waqtiga xamar ka shaqeynayay wuxuu noqday sarkaal sare ama madax wuxuu ka noqday hay'adda loo yaqaano UNICEF wuxuu haystay gobolada Koonfureed iyo gobolada dhexe ayuu madax ka ahaa dhinaca tacliinta ayuu had iyo jeer isaga xoogga saari jiray wuxuu kaloo maaragtay uu ahaa xubin firfircoon oo ka shaqayso ururada bulshada civil society-ga waqtigan dagaalka uu ka jiray xamar ninkii garanay wuxuu ahaa dad xubnaha firfircoon oo dadka isku soo jiido muxuu ahaa dadka wacyi geliyo nabadda uu ololeeyo ayuu ahaa jiray maaragtay 1999kii wuxuu ku guuleystay inuu aasaaso macahad loo yaqaano macahadka maamulka iyo maaraynta ay dhigtaan arday aad u tiro badan dhowr kun oo arday ay dhigtaan ayuu abaabulay hormoodna uu ka noqday madaxna uu ka noqday markii dambena macahadkaas wuxuu isku bedelay maanta waa jaamacad ay dhigtaan arday aad u tiro badan professor xasan sheekh maxamuud wuxuu ka mid ahaa dad marti ah oo dowladda Sweden ay ku casuuntay wadankan 2009kii professorada jaamacadaha Soomaaliya madaxda ka oo dhan ayaa la casuumay jaamacadda Stockholm ku taalo Kootiho la yiraahdo ayaa casuuntay wuxuu ka mid ahaa dadkii nasiibka u helay inuu Stockholm yimaado oo shirka ka qayb galo wuxuu la kulmay ardaydii Soomaaliya ka soo baxday macahadkiisa ka soo baxday oo maaragtay qaxooti ah ayuu dalkan kula kulmay mar waxa laga yaabaa inay tahay murugo dadku ku soo dadaalay wax soo baray inay dalka ka soo qaxeen marna waxa laga yaabaa inay tahay faa'iido oo maaragtay dadka aqoonta heer fiican uu soo gaarsiiyay markay yimaadaan wadamadan horumaray in maaragtay tacliintooda meesha ay ka sii wadaan oo tacliin sare ay gaaraan birina dalkooda maaragtay ay dib ugu noqdaan waxna u taraan xasan sheekh maxamuud wax qabadkiisii lama tilmaami karo wuxuu dareemay in maadaama uu civil society-gu ka shaqeynayay arrimaha bulshada in isbedel Soomaalida aan uusan ka dhici karin civil society-ga maadaama aysan awood gacantooda ku jirin wuxuu bilaabay inuu abaabulo 2011kii wuxuu abaabulay xisbi loo yaqaano xisbiga nabadda iyo horumarinta si uu isagoo damaciisa uu ku jira ahaa inuu muxuu awood uu helo mar hadduu awood helo wuxuu aaminsanaa inuu wadanka isbedel suubi doono xisbigiisa nabadda iyo horumarinta wuxuu ka mid yahay xisbiyada waaweyn oo Soomaaliya ka jiro mustaqbalkana laga yaabo inuu noqdo xisbiyada maaragtay wadanka hogaamiyo waxa ku xiran dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhigto abaabulkaas ayuu ku jiray muddadii dambe wuxuu nasiib u helay bishii Agoosto 2012 inuu noqdo xildhibaan baarlamaanka ka tirsan maantana caawa waxaan xafladan u qabanaynaa taageero aan siinayno inuu ku guuleystay madaxweynenimada dalka Soomaaliya waajibka inaga saaran ninkan imaamka ah oo la doortay waajibka inaga saaran muxuu yahay kow horta in bay'ad la siiyo bay'adaas khasama dadku hortiisa in la yiraahdo in lagu yiraahdo laakiin taageeradaadii haddaad u muujisid bay'adii waad siisay waa sunno soo jiri jirtay nabiga ayaa bay'ad bixiyay asxaabtiisa bay'ad qaadi jireen waa sunno soo socotay marka bay'ada xitaa adiga caruurtaadii inaad intaad fariisataan inaad tiraahdaan annaga haddaan nahay qoyskaas waxaan baayacnay imaamkaas saas in la yiraahdo beeshaas haddaan nahay waan baayacnay inaad tiraahdaan marka arrintaas aaday muhiim u tahay waxay leedahay simbool oo midnimo ah awood quwad ayaa ku jirto labo waxaan u baahanahay Soomaalida
wejigeeda cusub inaan dadka kula dhaqano soomaalida waxa in badan la tusayay dhinaceeda dhibaataysan oo liita ayaa la tusayay dad badan ayaa Soomaaliya docfigeeda ku qaraabanayay marxaladan waa inay dhamaataa Soomaali waxaan nahay oo caafimaadkoodu soo ceshaday oo adduunka qayb muhiim ah ka ah saddexaad inaan ka muujino waddaninimadeena wadamadan aan ku noolnahay dad muslimiin ah dhowrsan inaan noqono oo dadaalaya dad Soomaali ah oo waddanka ilaaliya oo wax ku soo biiraya oo dhalinyaradoodii ka warhaya iyo bulshadooda aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum بارك الله فيكم waxay ka koobnaanaysaa wasiya dardaaran iyo duco aan ugu talagalay madaxweynaha cusub waxay ka koobnaa doontaa dardaaran anuka aan soo dardaarmayna marka insha Allah ummadda Soomaaliyeed caamatan gaar ahaan heer Sweden hadaan nahay dowrka nooga aadan dalka Soomaaliyeed iyo hoggaanka cusub waxaan ka hormarayaa yani taageerada madaxweynaha cusub waa taageersanna waan ayideynaa laakiin waxaan baliyay mayno wax lagu hambaliyay meesha kuma hayo waagadan wax ma qabanba kiila loo dhiibay durwaaya lamadiis dhigood loo dhiibay barakallahu fiik waa garan kartaan in hoggaan la naqdo sideeday u dhib badan tahay gaar ahaan wax hoggaanka loo naqayo naftooda in la iska warsado muhiim waay Soomaali waay Soomaa marka waxaan leenahay horta koow kuwa hambalyeemayna waxaan ku leenahay Allah ku sakhira hawsha idinkana aamiin idha waxaan leenahay hoggaanka cusub oo professor Xasan Sheekh Maxamuud Ilaahay noogu dhiibay Allah u sakhiro waxaan rabaa inaan u dardaarmo hoggaanka cusub waxaan ugu dardaarmayaa raxmad ay ugu dardaarmayo dhimrin inuu u dhimriyo ummadda uu hoggaanka u yahay inuu u naxariisto waa inuu u naqayaa role model tusaale fiican hoggaamiyaalka asiga ka dambayn doono waxaad ogsoontihiin walaalayaal quraanshada bahasha la yiraahdo uunka ilaahay uu uuntay ama naflaha kuwa ugu yaray ka mid tahay fi ra'yi aynina indhahayna markii la fiirsho halbeegooda waxa ugu yar quraansho waa soo sida ma quraansha ilaahay ka warramay wuxuu ilaahay yiri وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هجامية أيها قرآن شغاس وحول هذا يا أمده هجانك وها محويها وحكا كان دافع محويها وحكا دواجياه محيهين وحاوي الشفقة والرحمة على أمته dhimrin iyo naxariis ummadiisa u haayo oo maxuu leeyahay ku xarooda guryihiinna waxa soo socdo jeysh iyo ciidan xoog leh Sulaymaan hogaaminayo insi iyo jinni iyo dabayl ka kooban sida darteed yeeyna cagta idin marinina ka xarooda ilaahay yaa ku maahmaahay walaxan anigu jeebkayga ka keenan maahan macnaha aayadaas leh ma ahan inay tahay matluwatun maqru'atun ala alsinatina fa hasab walaxan carabka leh aan ku akhrino كتبتنا وقرن دوكسيد وتجينا ما بل هي توحي إلينا وأنه وحيونيسا ومحنه وحيونيسا بالاقتداء بهذه النملة إن نقضي أنه قرآن شداس أيضا وإن هجانك أن حريسته بلشدا أو هجانك ويه وامدكوا بدردارن كي يكوا ودوا دردارن كلا بعد وحيتها اختيار بطانة دتك أو لا تليها كده هاي أو دورنا مدحوين أو كفير سان كلنا dadaad kow ku aragtay alla ka cabsi iyo u ahal naqasho waxaad kala tashaysid talada u dhiibo la tasho nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ma min ahadin tawalla min amri almuslimina shay'an illa walahu bidanatan qof muslimiinta taladeeda qabtay qofkaas wuxuu yeelaha laba nooc oo la taliyaalka dadka kamida kan koowaad wuxuu yahay bidanatun ta'muruhu bil khayri وتحثه عليه وتعينه عليه وتذكره إذا نسي لا تلي وناق فرايو ugu kaalmeeyhayo ku boorihayo haduu ka caajiso xasuusinaya haduu ilmaamo oo dhahayo ya ra'iisa al-umma
khayrkan baad ka ilduuftay waxaan ogaa hawshaa kaa badatay aslax allahu alamiir ilaahay taladaada ha wanaajiya khayrkan baad moogtahay khayrkan qabo la taliya la ilaaha loo baahan yahay marka la taliyahaasaytii hadduu asugu isu soo mutaxo qof qaadamayseen waxaan leenahay madaxweynaha ayay mas-uuliyaddiisa tahay inuu doono dadka la taliyaalka ugu habboon ee ummadda maslaxadooda kala talin kara wuxuu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa jiro la taliyaal nuuc kale oo la yidhaaho bidaanatun ta'muruhu bishar la taliya xumaha faraaya sharta wa tuciinuhu calayhi ugu kaalmaynayo dhahayo xoog anaa kula diyaara heer hebel ku duul heer hebel baabi'i oo xoolahooda dhac wahaakada wa taxuufuhu calayhi hadduu caajiska aragyo inuu sharta rabin hadduu aragyo ku boorihaayo oo wax walba ma taqaanaa u samaynaayo inuu shartaa ka dhaadhiciyo wa tudakiruhu idaa nasiya hadduu ka ilduufana xasuusiha marka waxaan rabnaa iyaaka uma iyaaka ya ra'iisana hogaankeennow madaxweynahaynow ka leexo nuucaas kuwa ka midka ah ee la taliyaal kuu naqan kara waxaan rabaa dardaarankayga waxay tahay mudane madaxweyne alcadlu walinsaaf ummadda inay kuu sinaato ummadda inaad u cadaalo fasho oo aad hadduu alla kuu roon yahay waa waxa ilaahay oo nala soo diray haddaan bashar nahay in allaha yaamuru bilcadli walixsaan wa iitaa'i dilqurba ilaahay cadaalow heer faray mudane madaxweyne waa lagaa rabaa cadaaladdaas waa lagaa rabaa cadaaladdaas ayadaa nuuceeda muxuu yahay cadaalatun laa yadmacu fiiha fii xayfika shariifun walaa yay'asu min cadlika daciif waa cadaalad kuwa taagta daran oo dullaysan oo dhibaataysan oon tabarta lahayn aynan ka quusanaynin cadaala ay damcaayaan oo ay isleeyihiin waa kan kii xaqayna aan ku dhacsa lahayn cadaalad noocaas aan kaa rabnaa madaxweynow ma rabno kuwa sharafta leh ee sarreeyo ee ama xoolo ku sara maray ama xoog ku sara maray ama wax kale ku sara maray maqaam ay dhaxleen ee aabbayaalkood ka dhaxleen ku sara maray ma rabna inay sharaftooda kaa ilduufiso cadaaladda amay damac ka galaan kuwaas inaad dartooda cadaalad darro u samayso madaxweyne waan kaaga digaynaa ka leexo mudane madaxweyne waxaad waadaan kula wadnaa waxaad waadaan kula wadnaa بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa idin urursanoo idin diyaaruhu waa dadkaasoo diyaar idinoo dhibka idin haysto ama gudihi idinku haysto ama dibadda idinku haysta dadka inay maaragtay u dadaala raba dadkaasaa soo baxay waxaan arki jiray oon yuutuboori ku arki jiray safaarado soomaali ah oo intaasoo kun ka badan oo dad soomaaliyeed ah oo nin walbaba jees oo u yahay safaarad u yahay oo haddii jeeskaa laga hadlo oo dhuunta ku qabsanayo iyadoo raggaa la soo xulay la helay oo dowladnimadii la helay oo sharaftii la helay ninka inta iloobay sharaftaas iloobay maxaa la yidhahdaa qabiil difaacayow wejigaaga naga qari allah gabdhaha soomaaliyeed ee qurba joogta ah waan taageeraynaa بروفيسور حسن شيخ محمود iyo golihiisa dawladda kamid ee xildhibaanka waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka بروفيسور جواري ha dhawaawa kalana ha dhawaaw master جواري بروفيسور جواري welcome جواري waxaan leenahay soo dhawow madaxweynaheennii hore sharafta lahaa ee qiimaha badnaa ee Soomaaliya masaamiirta taashay xaaqay laakiin garab helay hadduusan garab haysanin sheekh shariif wax ma qaban lahayn garab buu lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa asigana inuu noo joogo noo jiro noqdo kii taakuleeyo madaxweynaha cusub een ka harin hortiisa iyo gadaashiisaba noqdo haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed teeda kale waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne soo dhawow aan ku leenahay ilaahay xilkaad haysaha kugu garab galo haddaan nahay gabdhaha qurba joogta Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed way dhibaataysan yihiin meel kasta ay joogaan badday ku dhamaadaan birrigay ku dhamaadaan xabsiyaday ka buuxaan beeraha lagu qotaa gabdhaha Soomaaliyeed beeraha lagu fashaa awlaadna xabsiyada gudahooda looga dhalaa
wiilasheenna kadaalika raggannaga kadaalika wiilasheenna kadaalika kan dhimanaya waa ninkeenni waa walaalkeen waa abtigeen waa in adeerkeen waa kaan dhallay inta dhimanayso waxaan leenahay kuwii u istaaga sharafta Soomaaliya maanta iyo sumcadda Soomaaliya kuwii u istaago allaha ka dhigo ummadda Soomaaliyeed kis yaroo dardaarane ayaan leeyahay dawladda oo waxaan gaar ahaan u sii leeyahay weliba Professor Jawaarey hoba heley heliya hoba heley heliya hoba heley heliya heliska dantayne dadka leedeen dadka waa dhammaadeen way dadka waa dhammaadeen dadka leedeen dudu walma nin galaaso dugaaga hay ka reeboy dugaaga halka reeb huba hiley heliya ayaa urawtay ani gaali wayti huba hiley heliya heliska dantayne dadka leedeen dudun walma nin galaaso dadka leedeen dudun waxba nooma tartee dadkii way dhammaadeen waay dadkii way dhammaadeen dugaaga halka reebo Soomaaliya ha noolaato dugaaga ha laga celiyo Soomaaliya dacalka haysto tan kale waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha jiraan ha joogeen kuwa wadanka hanta dacal walba ka hantan Allah ka dhigo hanaga baxaan ciidamada kale ee garabka nasiyay dalka waxa ku filan ciidamadeena Soomaaliyeed salaamu calaykum daayirtaan jeclaayay u bixi dalkeenay dooroonayaashii deelayda qarannimo noo daadaheeyay daaheeda furay dib soo yegleelow alla haydin daayay daafaha adduunyada doc kastood ka joogtaan ducaa iyo salaam baan idin soo dirayaa darajo iyo maamuus rabbi idinku deeqiyo inta dunida joogtaan diihal ma aragtaan misna daarta aakhiro durdurkii firdawsaad ku dabaasha gabigii waxse iga digniin oo marna iga dardaarana deelaydu yay noqon dibin daabyo qaran oo ummadda dayacan ee dacdaraysan ee jabay marna yaana uga darin waa inay mid dooro u dagaasho nabadoo dawo keenta noqotaa dalkana noo midaysa aan hoos u daadago geeraar da'weyn oo damaq iyo dardaaranaan soo daynayaayo waan di'i sidii roob waan daliilin maansada dacal dhaafi maayo dowgeeda waan marin Soomaaliya dareenlay doqonay warmoogay maxay gabar dirkiina daringa la jiiftaa qaar bay shiidi doona malaha laakiin waa dhacday oo soo arkay dirac wiilashiina maxay dhaqanka doorsheen timuhuna u daban yihiin dhaguhuna u duran yihiin oo soo dalooshaday dahabna uu ka lulay dhaqan doorsan weeye duqay iyo wax garad ma leh iyagaaba ugu daran fadhigay ku diriraan dagaalada sokeeyana way ku diirsanayaan ciladaana soo ma jirto qaar doonyo saarnaa dibadaha u waalnaa iyagoon dabaal baran bad maxay ku daateen dumar iyo caruur badan dalkoodii ka soo qaxay door biday qaxoontiga maxay deerar jiifaano dawarsanaya qeyrkood oo darxumayo ku nool silic maxay daawo waayeen duumaduna laysoo dhalaxnaaqay daacuun taa waxaa ka sii daran maxay qaar dareen li duqaq iyo rag laayeen diintu dhowrayna tidhi taa waxaa ka sii daran indha deerale iyo hablaheena dahabka maxay qaar damiinaa damac uu ka galay oo dariiqaan habboonayn dirqi uga dhigeen oo dusha uga baxeen oo dantooda heleen oo dabadeedna dooxeen ma duugowda lahasho taa waxaa ka sii daran maxaa hooyo diracada dulmi lagula kacay oo laga dumiyey gurigii duqeediina laga dilay oo u hooyatay dibadaha dariiqyada madowga ah ubadkuna doc yaallaan ma duugowda lahashadu ma diyooba maankuna ma ilooba digashada dadku ay leeyihiin nin dalkiisa dirsho yacni markaa dee soo waddanka ay ka timaadid dad lodkaayoo dhallinyaraayoo aada isku waqtitii inaad la kulantid oo su-aal kaa weydiiyaan oo yidhaahdaan tusaaleaan maxaa waddankaagii dadkaagu isku leynayaan waa su-aal aadan jawaab u heli karin qudha aad markaa tahay nin dhallinyara soo maa oo wax cajiiba ma ilooba digashada dadku ay leeyihiin nin dalkiisa dirshow muxuu dawarsi kuu tari maxay dowlad kale iyo dad shisheeye kuu qaban
soo kii duqii yidhi darajiya wanaag iyo dadnimo iyo maamuus dalkaagaad ku leedahay ila durugay hadalku iyo deyr waxaan ku soo xidhay mid yaroo dardaarana daayirtii haddaan nahay ubaxii dalkaanee ma dhisnaa dalkeennii dadka ma isku keennaa diinteenna wacan iyo ma tusnaa dariiqada innagaa dalkaba lee dowlad ma u horseednaa layswada dagaaliyo laysku wada dambaabiyo taa waan ka daalnee ma dhahnaa dadkeenna u dembi dhaafka doorbida in ay labada daarood midda hore darxumo tahay ta dambena dahabi tahay doog iyo ugbaa tahay janno lagu dabaashiyo deeqda eebba ay tahay dadka ma u wargelinaa doorkeennii weeye dulmiga ma hor istaagnaa xaqa ma u dagaalnaa danta guud ma eegnaa dabka shidan ma daminaa ubadkeenna daayacan daryeel ma u samaynaa dugsiyada ma geynaa hooyada derbiga taa laga dumiyey gurigii duqeediina laga dilay ee u hooyata dibadaha dariiqyada madowga ubadkuna doc yaallaan dibudejin ma siinaa dalkeennaa burburay ee dagaaladu ragaadsheen dowladnimo sarraysiyo deganaansho iyo nabad ma ku soo dabaalnaa ma doorsoomaheena iyo calankeenna dahabka dawadiiyo astaanta sida ubaxa dayreed doogada la moodee daawashada ku qurux badan innagaa dullayno darajadii ka qaadnoo dacsad baan ka dhigannay dambaska maan ka maydhnaayo dusha maan ku qaadnaa deegaanadeenna iyo dacallada dalka oo idil isagoo daruur u eg dib mar ma uga taagnaa dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooye somaydaan maqlin kelmadda dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooye waa hadal da'weynoo abwaan duubay waa hore daartii jannada iyo durdurkii firdowsaan anna ugu duceeyaa inuu noo dabaashee daa'im baan la kulansiin darxumadana haysee marna uma dulqaateen hadduu dunida joogee waa siduu ka digayee dulliga iyo qabiilkiiyo kala daadsanaantaan naga reebay dunido cudur ina duleeyo dawo helini weeyo dambarkiisii aragnay ol iyo diir ma noqonaa dadkeennaa la kala dilay darisyada culoobee dabka aanan kala shidan geed damala hoostii xariir ma ugu daahnaayo darin ma ugu fidinaa doorweynta cadowgaa damacoodu wuxuu yahay inay diradireeyaan dabin ay u qoolaan ummaddeenna daayacan isku duubnideennay inoo diidayaanoo inaan kala diyowno kala daadsanaanno kala dowlad noqonno aan itaal darraanno mid mid noo dilaan gebi damacoodu weeyaanoo danna nooma aha taasee digtoonaan ma qaadnaa diinteennu siday tidhi isku duubnideenna iyo midnimo aynoo dana inaan kala dudnaayo kala durugu khayr ma leh duul wada dhashaan nahay dad walaala baan nahay dad islaama baan nahay dal ayaan wadaagnaa diin baan wadaagnaa daaqsin baan wadaagnaa dumar baa u kala dhaxa deegaanadeenne waxaan isku dilayneen isku dabarjarayneen dadka uga yaraanay soomaaha doqonnimo dastuurkeennii weeye diinteenna gebigee duuduuma u xambaarnaa daraawiish jidkeediiyo dariiqay SYL xornimada ku dooneen daah nagama xigo oo dahaar nagama saarnay daayaree ma raacnaa diyaar ma u tiintaa waa hagaag haddaa dee waddankii dowlad baa ka dhalatay waxa u baahan yahay nin cilmi leh iyo nin lacag leh innaguna caydh baynu qaadanaa waa inaynu waddan ka shaqaysanno markaa soo maaha saasaynu iska ognahay soomaaliya ha noolaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bahdi saxaafadda oo maalin dhoweyd qaraxa lala beegsaday waa murugo dhallinyaro yaryar oo maanta soo baxaysa oo ma taqaanaa codkooda aan cidna wax u dhimin in saacad yar lagu dilo bilaa macno ilaahay maaragtay taas ha naga baabi'iyo qaraxana ha naga baabi'iyo waad mahadsantihiin walaalkay maxamed diini iyo asxaabtiisaba asalaamu calaykum caawa waxaa farxad noo ah magaalada Gothenburg inaan ku soo qabanay barnaamij aad u weyn oo Soomaalida degan Gothenburg iyo agagaarkeeda meel kasta iskaga wada yimideen caawa barnaamijkaas wuxuu ku saabsanahay iyadoo la soo dhaweynayo nidaamka isbeddelka cusub Soomaaliya ka dhacay nidaamka baarlamaanka cusub gudoomiyaha baarlamaanka cusub madaxweynaha dhawaan la doortay Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari maanta
caawa ma malay kartid farxadda soomaaliya meeshaan iskugu yimideen barnaamijkan waxaa qaban qaabiyey jaaliyadaha soomaaliyeed oo degan magaalada gothenburg gaar ahaan walaalaheen oo hadda geesaha iga taagan cusmaan haddaan ka bilaabo cali yaragaan haddaan kusii xijiyo dhinaca bidaxda iga taagan walaalkii cabdulaahi jowhar oo qayb weyn ka wada qaatay iyo maxamed diini oo hadda aan shaashadda ka muuqan laakiin xiriiriya noo ahay iyo ibraahim qaliinle oo howl kale maanta ka haya oo weli hadda noo imaana meesha iyo in kale oo naga badan hawshaas qayb weyn ka qaatay munaasabaddan waxay ahayd inaan u duceyno xilka culus oo loo dhiibay profesor xasan sheekh maxamuud shakhsiyan xasan sheekh maxamuud wuxuu yahay iyo wuxuu galo waxaa nooga sheekeeyey walaalkeen cabdulaahi jowhar oo isku iskuul ay ahaayeen oo isku barashay ahaayeen isku meel kusoo wada koreen oo taariikhdiisa caawa si fiican nooga dharjiyey asna waxaan rajaynaynaa profesorka in ilaahay la garab galo howshaas xilka weyn soomaaliya maanta way dhaawacan tahay soomaaliya maanta wax badan ay u baahan tahay hal qof keliya wax ka qaban karo wuxuu u baahan tahay soomaaliya oo dhan inay dhinaciisa istaagto haddii la rabo in dhibaatadan laga baxo waxaana hubaa xasan sheekh maxamuud inuu yahay ninka keliya oo ka bixi karo waayo 20 sano wuxuu joogay muqdisho fadhiyey wuxuu og yahay dhibaatada xudunta dhibaatada og yahay maanta nin aga badiya malaha maanta dhibaatooyinka soomaaliya ka taagan aad iyo aad ayaan waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan dadka sharafta leh ee caawa ka soo qaybgala xafladdan aad baan wada faraxsanahay kulley sidaad u jeedaan caawa dadka dhalinyaro iyo waxaan ku rahdaa rag iyo dumarba waa laba farxadood runtii waxaan ujeeddadu ahayd mahad celinta iyo maxaan ku taageerada madaxweynaha cusub iyo ra'iisul baarlamaanka cusub ilaahay idinkana waxaan ka rajaynaynaa inay soo doortaan ra'iisul wasaare sidaasoo kale loogu farxo mar labaad waxaan aad uga xumahay inay tacsi kale noo taalo wariyaashii la dilay iyo dadkii muslimiinta ahaa ee meesha ku dhammaaday maalinta dhoweed aad baan iyadan ugu tacsiinaynaa waana guddoomiyaha noo soo gebangabeeyey waxaan ku soo gebangeynayaa dhammaantiin inta ka soo qayb gashay xafladdan aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu